inuu qofku rasuulka jecel yahay sallallahu alayhi wasallam maxabada diiniga waajibka maxaa muujinaya dhowr arrimood baa muujinaya tiraba shan bayn soo qaado waa itibaac inuu qofku rasuulka raacayo qofku ciduu raacayo ma weydaarto oo idinka arkooda yarteenu gaalada ay jecel yihiin bay isu wadeegaysiinayaan sidii suu labisanaya sidii suu xiiranaya maxaa haylahaylay kanuu jecel yahay oo daba ka daba dhacay marka rasuulka jeceshay sallallahu alayhi wasallam waad ku dayar waad raaci haday ka dhabto sidaasana ilaahay uu markuu yiri qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum dadka waxaad ku tiraahdaa hadii ilaahay jecel anigu soo raac cid ilaahay jecelo marka al mahabba ittibaa'iyya al mahabba diiniyya raacida rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa calaamad sheegaysa inaad jecesho waxa labaad oo kamida calaamadaha inaynu difaacna rasuulka sallallahu alayhi wasallam hayyan wa mayyit markuu noolaa iyo markuu dhintay sida tusaalayaasha asxaabteena ku arki doonto illa tansuruhu faqad nasarahu allah hadaydan difaacin ilaahay wuxuu leeyahay difaaci horena waanu difaacay marka kii garabkiisa ka baxo kuma baana rasuulku ilaahay baa garab taagan mid gaal iyo mid muslim sheeganaya ka rasuulka caaya ka xaqiraya ma eegan karaysa sidaanad u eegan karay naftaada marka la caayo iyo reerkiina marka la caayo iyo dawladdaada iyo xisbigaaga soo adigan qowlaladu ku karayaan hore u soo boodaya رسولك محاد ودغيسنيسا صلى الله عليه وسلم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وهذا الذي ليلة القدر قال في ليي كوبي الله واتن الله ينوافقيه استعمل بما بدين هنا وحوي هذين كاسين وغورغوره habeen galayo sanadka 22 sanad ku xiga 23 ila 29 marka waxa looga jeedaa in la wada dadaalo waxyaabaha in ku dadaalayna mid kamida ayaa aynu isxusuusin doonaa leeylatul qadriga iyo ahkaamtiisa culimada inta doona insha Allah waxaan isku taagaynaa aayada midowna ay ka dambayso suuratu tawba qala Allah ta'ala